بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودي الميل والبود نغلا سعوتان كسو دوادا برنامج كني دولميركا wararka wacal media oo aan kugu hayno qodobo ay kamid yihiin baarlamaanka galmudug oo doortay gudoomiye cusub iyo madaxweynaha maamul goboleedka galmudug oo gaashaanka u daruuray inuu aqoonsado baarlamaanka cusub ee laga dhisay maamul goboleedkaasi dagaalo ku dhex maray ciidamada dawladda Soomaaliya iyo al-shabaab gobolka Shabeellada Hoose oo ay ku dhinteen dhowr qof muwaadiniin Soomaaliyeed oo lagu kala dilay wadamada Koonfur Afrika iyo Gariiga duqeymo Mareykanka ka geystay wadanka Soomaaliya oo lagu dilay saraakiil sarsare oo ka tirsan ururka al-shabaab qodobada wararka dibadda aan kugu haynana waxaa kamid ah Taliban iyo wadanka Mareykanka oo wada hadal ku yeelanaya magaalada Dooxa ee wadankaasi Qatar hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iran oo difaacay militariga dalkaasi isagoo tilmaamay in militariga dalkaasi ay ku saxnaayeen inay soo ridaan diyaaradii laga lahaa wadanka Ukraine sidoo kale qodobadaan kugu hayno waxaa kamid ah haweeneyda ugu taajirsan qaaradda Afrika oo doonaysa inay u tartanto madaxweynenimada wadankeeda daawadayaal iminkana ku soo dhawaada qodobadeena oo faahfaahsan aynu ku bilaabanay magaalada Dhuusamaree baarlamaanka Galmudug ayaa maanta doortay gudoomiyaha cusub ee golaha sharci dejinta ee maamul goboleedka Galmudug Maxamed Nuur Gacal oo helay 54 cod ayaa doorashada gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug kaga guuleystay Cabdinaasir Aadan Cusmaan oo la tartamayay kaasi oo helay 34 cod anoo ku hadlaaya gudoonka baarlamaanka labaad ee Galmudug iyo maamulka Galmudug waxaan mahad iyo hambalyo u dirayaa dawladda federaalka Soomaaliya xukuumadda federaalka labada gole ee baarlamaanka federaalka odayaasha dhaqanka iyo hogaamiyaasha dhaqanka ee Galmudug dadka reer Galmudug dadaalkii dheeray oo muddada dheer soo socday ee lagu yagleelayay maamulka Galmudug dib loogu yagleelayay mar labaad waa mahadsantihiin intaa kadib waxaan u mahad celinaynaa ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo kuwa Galmudug ee u taagnay habeen iyo maalin inay amniga iyo nabadda Galmudug xoojiyaan waxaan u mahad celinaynaa intii ka soo qayb qaadatay dhismaha maamulka Galmudug gacanna ka geysatay intaa kadib waxaan u hambalyaynayaa xildhibaanada baarlamaanka Galmudug waxaana uga mahad celinaynaa kalsoonidii aadna siiseen gudoonka baarlamaanka Cabdullaahi Axmed Calasow oo kamid ahaa musharaxiinta ayaa isaga baxay tartanka saacado uun ka hor inta aysan bilaabanin doorashada taasi oo keentay inay isugu soo haraan labada musharax ee kala ah Maxamed Nuur Gacal iyo Cabdinaasir Aadan Cusmaan Maxamed Nuur Gacal iyo golihiisa ayaa shaqadooda ugu horeysa waxa ay noqonaysaa inay soo doortaan madaxweynaha cusub ee maamulkaasi doorashada maanta dhacday ayaa waxa ay imaadaysaa iyadoo madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf uu gaashaanka u daruuray kana soo horjeestay doorashadaasi isla markaana uu sheegay in dawladdiisa ay sii shaqayn doonto gudoomiyaha cusub ee maanta loo doortay inuu hogaamiyo baarlamaanka Galmudug ayaa waxa uu ku dhashay degmada Ceel Dheere ee gobolka Galgaduud sanadka markuu ahaa 1966 gudoomiyaha ayaa waxbarashadiisii marka uu soo dhameystay jaamacadda Muqdisho ka noqday hormuudka kulliyadda sharciga ee jaamacaddaasi intii u dhaxaysay sanadyadii 2013 ilaa 2014 ayaa gudoomiyahan cusub waxa uu soo noqday wasiiru dawlaha arrimaha dibadda ee dawladda federaalka Soomaaliya wararka naga soo gaaray gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxa ay ku waramayaan in dagaal culus oo dhex maray ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa al-shabaab dagaalkani oo ka dhacay Ceel Xaaji oo hoos tagta degmada Cadalle ayaa waxa uu yimid kadib markii ururka al-shabaab ay weerar ku qaadeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo fariisimo ku lahaa tuuladaasi sida ay ku waramayaan ila wareedyo ku sugan tuuladaasi 7 qof oo ka kala tirsanaa dhinacyada ku dagaalamaya tuuladaasi ayaa ku geeriyooday dagaalkaasi kooxda al-shabaab ayaa waray soo dhigtay baraha bulshada waxa ay ku sheegeen inay weerar ay ku qaadeen saldhigyo ay leeyihiin ciidamada dawladda federaalka ay la wareegeen ayna ku dileen dhowr askari hase ahaatee mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa sheegashada al-shabaab ka soo qaaday waxba kama jiraan ciidamada dawladda ayaa waxaa dagaalka dhankooda ku wehelinayay maleeshiyaad deegaanka ah oo iskood isu soo abaabuli kuwa oo la dagaalamaya al-shabaab
waa weerarka labaad ee al-shabaab ay ku qaadaan deegaanka Xaaji Cali muddo dhowr bilood gudahooda ah. dhinaca kale ugu yaraan hal askari iyo 4 ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab ayaa ku dhintay weerar maleeshiyaadka al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay ku lahaayeen Hoosingow ee gobolka Shabeellada Hoose. dadka deegaanka ayaa sheegaya in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay iska caabiyeen ururka al-shabaab dagaalkaasna ay kaga guuleysteen. kooxa ku hubeysan Toorey ayaa lagu soo waramayaa in magaalada Lesvos ee ku taala wadanka Greece ay ku dileen muwaadin Soomaaliyeed oo magaciisa lagu soo koobay Axmed kaasi oo dhawaan halka ku tagay tahriib. dilka wiilkan yar ayaa la sheegay inay geysteen dhalinyaro Soomaali ah isla markaana haatan ay booliska wadankaasi Greece ay baadi goob ugu jiraan sidii loo soo qaban lahaa dhalinyaradaasi. Soomaalida ku nool wadanka Greece ayaa sheegay in ay dareemeen cabsi badan kadib markii ay maqleen dhacdadaasi isla markaasna aysan ahayn tii ugu horeysay ee muwaadin Soomaaliyeed loogu geysto wadankaasi Greece. dhinaca kale wararka laga helayo Koonfur Afrika ayaa iyana sheegaya in burcadda Koonfur Afrika ay dil u geysteen muwaadin Soomaaliyeed oo kamid ahaa ganacsatada ku nool wadankaasi. Allah u naxariista muwaadinkan Soomaaliyeed ee lagu dilay dalka Koonfur Afrika ayaa lagu magacaabaa Cabdi Fataax Aweys Axmed iyadoo kooxihii dilkaasi geystay ay meesha isaga baxsadeen. dhacday deegaanka Kunya Barrow ee gobolka Shabeellada Hoose kaasi oo loogu geystay xubno ka tirsan ururka al-shabaab. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in duqeyntaasi lala beegsaday 2 xubnood oo ka tirsanaa ururka al-shabaab kuwa oo weerarka lagu dilay. saraakiisha dowladda ma aysan shaacin magacyada xubnaha lagu bartilmaameedsaday duqeyntaasi. dhinaca kale ururka al-shabaab wax war ah kama aysan soo bixin oo ku saabsan saraakiishaasi la sheegay in lagu dilay duqeymahaasi. militariga dalka Mareykanka ayaa sidoo kale xaqiijiyay in weerar cirka ah ay ku qaadeen al-shabaab kaasi oo ay ku dileen 2 saraakiil sarsare ah oo ka tirsanaa ururka al-shabaab. taliska ciidamada Mareykanka ee Africom ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in duqeyntaasi ay dhacday maalinnimadii Khamiista ahayd laguna bartilmaameedsaday 2 xubnood oo ka tirsan ururka maleeshiyaadka ee al-shabaab. Africom sidoo kale ma aysan sheegin magacyada shakhsiyaadka lagu bartilmaameedsaday howlgalkaasi. markaana wararkii dibadda Taliban ayaa diyaar u ah inay xabad joojin 10 maalmood ah la galaan ciidamada Mareykanka haddii ay heshiis la gaaraan wadaxaajoodayaasha dalka Mareykanka ah ee ay wada hadallada kula leeyihiin magaalada Doha ee dalkaasi Qatar. Taliban ayaa sidoo kale diyaar u ah inay yareeyaan rabshadaha ka dhanka ah ciidamada Afghanistan isla markaana ay wadaxaajood la yeeshaan saraakiisha dowladda Afghanistan. haddii heshiis noocan ah la gaaro waxa ay dib u soo nooleyn kartaa rajadii laga qabay in xal waara laga gaaro dagaalka Afghanistan. afayeenka xafiiska Taliban ee wadankaasi Qatar Suhayb Shahin ayaa sheegay in Taliban ay wadaxaajoodiyaasha dalka Mareykanka Arbacadii iyo Khamiiskii ay kulan kula yeesheen magaalada Doha ayna ka wada hadleen in la gaaro heshiis horudhac ah. Suhayl Shahin ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka waxa uu sheegay in Taliban ay mar walba ka go'an tahay inay wadaxaajood ku dhameyso khilaafka ka taagan wadanka Afghanistan. hogaamiyaha ruuxiga ah ee wadankaasi Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa difaacay militariga dalkaasi kadib markii dhawaan xukuumadda Tehran ay qiratay in diyaarad rakaab ah oo laga leeyahay wadanka Ukraine si ula kac ah aanan loo soo ridin. waxa uu sheegay in ciidamada kacaanka ah ay ka dambeeyeen musiibadaasi iyagoo ilaalinaya amniga wadanka Iran. Ayatollah oo maanta salaada Jimcaha ah dadweynaha ku tujiyay gudaha magaalada caasimadda dalkaasi Iran ee Tehran markii ugu horeysay 8 sano ayaa sheegay in ciidamada militariga ee dalkaasi ay mar walba u taagan yihiin inay difaacaan amniga wadanka Iran. Isabel dos Santos oo ah haweeneyda u dhalatay dalka Angola ahna haweeneyda ugu taajirsan qaaradda Afrika ayaa sheegtay inay doonayso inay u tartanto xilka madaxweynenimo ee dalkaasi Angola. haweeneydan oo haatan loo haysto fadeexado musuqmaasuq ah ayaa waxaa dhalay madaxweynihii hore ee dalkaasi Angola Jose Andro dos Santos kaasi oo Angola xukumayay 38 sano. xafiiska dacwad oogaha ee dalkaasi ayaa sheegay in lagu raad joogo lacaga dhan 1 bilyan oo dollarka Mareykanka ah oo ay sheegeen in ay doonayaan inay kala soo wareegaan haweeneydaasi. lacagtaasi ayay dowladda Angola ku sheegtay in laga dhacay dowladda hase yeeshee eedeymahaasi ayay iska fogeysay haweeneydan. Mrs. Dos Santos oo da'deedu ay tahay 46 jir ayaa waxa ay ka mid tahay haweenka ugu taajirsan dunida waxaana wargeyska Forbes uu hantideeda ku qiyaasay lacag dhan 2.2 bilyan oo dollarka Mareykanka ah taasi oo ka dhigaysa inay tahay haweeneyda ugu taajirsan qaaradda Afrika. daawadayaal intaa waxaynu ku soo koobaynaa barnaamijkeennii dulmeerka wararka tan iyo intaynu ku kulmayna barnaamijkiisa kale waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.